waxa uu u soo islaamay keliya inuu hurdo helo. Sheekadoo dhammaystiran dhextaalka kadib. barnaamij ka baxa ama laga sii daayo telefishinka la yiraahdo Al-Raxma ayaa caalim lagu magacaabo Sheekh Maxamed Xasan oo u dhashay dalka Masar kana mid ah culimada waaweyn ee caanka ka ah dunida ayaa ka hadlay qiso cajiib ah oo ka waramaysa nin u soo islaamay kaliya inuu hurdo helo. waxaana sheekh isagoo arrimahaasi ka hadlay yiri sidan: nin u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa isagoo aqalkiisa jooga waxa uu daaqada ka arkay nin muslim ah oo beer ku taala meel aan ka fogeyn gurigiisa seexday oo hurdo la dhacay. ninka muslimka ah ayaa si degan inta gacmihiisa madaxa ka hoos mariyay iska seexday isagoo u muuqday qof hurdo aad u macaan u socotay. waxaana intii ninka muslimka ah uu seexanayay oo idil dusha kala socday ninkan gaalka ah oo dariishada uu degnaa ka daawanayay. intaas kadib waxa uu usoo degtay gurigiisa waxaana u soo dhawaaday ninka muslimka ah ee jiifa. kadibna waxa uu arkay inuu hurdo dheer gashaday oo uu khuurinayo. aad iyo aad ayuu u yaabay wuuna ka kiciyay hurdadii. markaasuu weydiiyey, niyahow adigu yaa tahay? ninkii muslimka ahaa ayaa ugu jawaabay, waxaan ahay muslim. ninkii gaalka ahaa ayaa weydiiyey, muslimka ma sidaan fudud ayuu u seexdaa? ninkii muslimka ahaa ayaa jawaab ka siiyey iyagoo sheekadoodii halkaas ay kasii wateen. ninka gaalka ah ayaa u sheegay ninka muslimka ah inuu muddo raadinayay si uu hurdo u helo, waxaana u sheegay inuu daawooyin badan u isticmaalay sidii uu hurdo ku heli lahaa awgeed. ninkii markii uu xaaladaas la kulmay kadib ayuu aaday markas Islaam ah waxaana halkaas kaga dhawaaqay kelimada diinta lagu soo galo ee shahaadateynka, iyagoo halkaasi lagu baray sida loo tukado. habeenkii ayuu seexday markaska waxaana la tusiyey ama la baray qaabka muslimiinta u seexdaan oo ah in dhanka midigta loo seexdo iyo ducooyinka la akhriyo. intaa markii loo dhameeyay ayuu la dhacay hurdo aad u macaan. waxaa dhacday in loo kiciyey salaadii subax. markaas ayuu yidhi, maya ha ikicinina. wuxuuna dadkii kicinayay u sheegay inuu ka cabsanayo ama ka baqayo inuusan mar dambe helin haddii uu ka kaco hurdo noocaan ah. balse raggii kicinayay ayaa ku yidhi, waad seexan doontaaye kac, hadda waxaa la joogaa xilligii salaada. sidii ayuu ku kacay oo salaadii ku tukaday, balse markii salaada la tukaday ayuu damcay inuu seexdo. waxaan lagu yidhi, sug wax yar, waxaa noo dhiman inaan ducooyinka subaxda akhrisanno, kadib ayaa hurdo dheer seexanaysaa insha Allah. qisadan ayuu Sheekh Maxamed Xasan oo u dhashay dalka Masar waxa uu kusoo gabagabeeyey sida diinta qiimaha badan noogu leedahay ayna sababtay inuu hurdo kaliya nin gaal ah u soo islaamay.